bisha Ramadaan maalmaheeda wuxuu Ilaahay ka xarimay dadka mu'miniinta waxyaabo badan oo xalaal u ahaa oo welina qaarkood ahaayeen cibaado ajir laga helayo. Waxaa kow ka ah ama ugu weyn ama ka mid ah arrimahaasi galmada dhexmarta ninka iyo xaaskiisa maalin Ramadaan. Runtii galmadu waa cibaado laga helayo ajir. Wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam cadeeyay ninka markuu xaaskiisa u tago inuu ka helayo ajir. وفي بضع أحدكم صدقة. sidaas ay tahay haddii ay galmadu dhacdo maalin Ramadaan ayakoo sooman uguna talagalaan waxaa ka dhalanaysa kafaaro aad u culus oo adkaanayso inuu ninku ka lug baxo. haddii ay dhacdo inuu ninku u galmoodo xaaskiisa maalin Ramadaan ayakoo sooman waxaa waajib ku noqonaysa korkiisa kow inuu xoreeyo qoor yacni adoon inuu xoreeyo. haddii uuna awoodi karin waxaa waajib ku noqonaysa in uu soomo 2 bilood oo xiriir ah. qofkii maalin adkaysan waayay sideeba ku adkaysan karaa 60 maalin? runtii waa arrin aad culus. arrinta saddexaad ee waajibka ku noqonaysa haddii uu awoodi waayo labadaa hore waxaa weeyaan in uu quudiyo 60 miskiin. ayadana ma ahan wax sahlan. waxaa wanaagsan oo fiican in qofka muslimka uu soonkiisa ilaaliyo oo aad isku kontaroolo wax waliba oo soonkaada dhib u keeni karana aad ka fogaato. waxaa intaa dheer oo qofka laga rabaa inuu soo qalleeyo maalinkii uu ficilka sameeyay ee galmada ku dhacay, iyo weliba sidoo kaleeto inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno oo u laabto maadaama uu qofku sameeyay khalad weyn oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisii jabiyay oo ku caasiyay. fiiro gaar ah haddii qofku 2 beri ama 3 ama ka badan uu galmo sameeyo bisha Ramadaan gudaheeda ma ahaan inay hal kafaaro kaaga filan tahay. waxaa laga rabaa maalin waliba goonideeda ay kafaarada uga dhalanaysaa. tusaale ahaan haddii qofkii 2 maalin uu ku dhaco galmo waxaa laga rabaa inuu xoreeyo 2 qoor 2 adoon. haddii uuna awoodinna 4 bilood bay ku noqonaysaa. kolkii hore 2 ahayd halkii maalin, tan 4 bilood ayay noqon. haddii uu awoodi waayana waxaa laga rabaa ayadana inuu quudiyo 120 miskiin. maalin waliba goonideeda ayay u wadataa kafaaradeeda. Ilaahay subxaanahu wa tacaala soonkeena ha aqbalo, hana nagu daro adoomadiisa uu cadaabka ka xoreynayo, hana naga yeelo kuwa maalinka yawmal qiyaama uu soonku u shafeec qaado. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka dacwada diinta ee Ilayska Islaamka subscribe dheh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.